السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحابي صومالي وإذن سلامي ملكست الدنيا دا أدك جوكتان وقيبتي لباد إيو مسلسلكي قصة دبتا ومعانك بدنيت إذن شاقي قيبتي لباد وحي كودا مانيسي ويلكي سمفالها أهاي iyo gabadhii indhoosha ahayd oo qisadii yareed dhexmartay gabadhii oo shil gali rabto oo wiilkii badbaadiyay ayagoo argagaxsan guriga uu keenay laakiin aanan la helin nafaas ama time la isku waraysto magacaa iyo magacaa gurigii gabadhii guriga ayaa la keenay hooyadii waa tii argagaxday waa tii sheekada loo sheegay oo tiri berri waaga markuu baryo waxaanu tagaynaa halkii aan ku cibaadaysanaynay alla ayaanan soo baryaynaa gabadhayda badbaadadii uu badbaadiyay okay subaxii bay tageen waxay aadeen goobtii ay kusoo cibaadaysanayeen way soo cibaadaysteen soo laabadkii ay guriga imaanayeen ayay la kulmeen meel waxay meeshii soo maraayeen jidkii waxay la kulmeen buuq iyo dagaal gabadha markaa dhagaha u taagan waa kaa idin dhahay waxay leedahay voice memory na way leedahay waxay tiri aboowe dagaal ayaan maqlayaa wiilkii indhuhu taagay way kusoo baxeen dagaalkii laba wiil oo teenage ah ayaa baalasha iska rifaaya markaas ninkii samafalaha ahaa oo iyada caawiyay ayaa ku dhex jira oo kala reebaya meesha waxaa taagnaayoo dhan ilmana oris ayay leeyihiin wiilkii waxay ku tiri aboowe sug ninkii i caawiyay codkiisa ayaan maqlahayaaye socodkii ayay hakiyeen waxay kusoo leexdeen meeshii dagaalka ka jiray wiilkii samafalaha ahayna wuu arkay gaarigiisii ku orday ayaga barkoodii wuu kusoo dhaqaaqay wuu soo aaday waa lisa salaamay markii lisa salaamay gaarigii ayuu kasoo degay wuu salaamay inteed ka timaadeen buu dhahay waxay dhahay wiilkii yaraa markiiba waxaan ka imaanay goobka lagu soo cibaadayso ilaah baan soo baryaynay adiga shalay caawitaankii wiilkii bay ku tiri aboobe sharaab oona sii soco iska tag ma dhaaf annaga bis wiilkii markaas mayaseen kaaga tagaa buu yiri eedda way qaylinay wiilkii weyna samafale ayaa wuxuu yiri aniga she's okay waa gabar weyn guriga imaani kartaa anaana keenayaa iska dhaqaaji wiilkii yaray waa dhaqaajiyay labadan ayaa isku soo hareen waxay tiri hooyaday ayaa iigu tiri ninkii kusoo badbaadiyay apologize maxaad oga bixin waysay apologize waxaa la yiraahdaa raali gelin laakiin meel qaldan bay u isticmaashay hooyadii maxaad ninkii u apologize gareen waysood raali u dhihi waysood mahadsanid u dhahday waysay ka waday markaas waxay ku tiri hooyo ayaa igu tiri maxaad u apologize gareen wayso markaas maxaa igu samaysay aniga oo ii apologize gareynaysaa markaas waxay tiri aniga hooyo ayaa igu tiri maxaad u apologize gareen waysay markaas intuu gacmaha iskoorsaa tudhi okay apologize me then markaas waxay ku tiri thank you waad mahadsan tahay meeshii sheekada kasii wateen wuxuu yiri magacaa waxay tiri naadiye ayaa la dhahaa wiilkii yaraa kula dhashana yariisow ayaa la yiraahdaa bay tiri adiguna isagana wuxuu dhahay waxaa la yiraahdaa samafale sheekadii meeshii ka socotay waxay tiri markan waan baxayaa waan tagayaa guriga ayaan aadayaa waayo hooya ayaa walwalsane waxay tiri waan baxayaa waan kusii qaadaa uu yiri baabuurkii kusoo qaaday ilbaabka gurigoodu joojiyay waana laabtay waxaa dhacday
habeenkii way iska baryeen gabadhii. maalintii subaxii dambe ayaa wiilkii yaray adeeg loo diray. isagoo adeegii kasoo socda oo guriga soo galayo iyo wiilkii samafale oo magaalada intuu aaday gabadhii shopping ama adeeg usoo sameeyey ayay iska hor imaadeen. markaa gabadha waxay wadataa ul iska ul ah oo geed loo jarjaray ayay dhulka ku tataabsataa. wiilka samafale wuxuu aaday magaalada, wuxuu usoo gaday special ul oo loogu talagalay dadka indhaha dadka lixaadka aragala ayuu usoo iibiyey. dhaxda isagoo soo socdo oo guriga kusoo socda iyo wiilkii yaraayo adeega doonayay ayaa iska hor imaadeen. gaarigii ayuu u joojiyey, wuxuu dhahay inteed ka imaatay? adeeg ayaa la diray, adigana inta ujeeda ciidan ku socdaa. soo gal gaariga intuu gaariga soo galin uu joojiyey, u dhiibay alaabtan ayaan u wadaa Naadiyo. alaabtii ka qaaday wiilkii yaraa waa jeclaaday, waa farxay, wuxuu dhahay waaw aad iyo aad ayay u qurux badan tahay, way jeclaani doontaa. aamusuu dhahay shuush, waan tegaynaa meesha, aniga kulama socdo. waxaad dhahaysaa Naadiyo waxaan soo arkay samafale, alaabtan ayuu iisoo dhiibay, reactionkay bixini doonto ayaan ogaani doonaa. wuu imaaday, abaayo u imaaday, wuxuu dhahay abaayo waxaan arkay samafale, wuxuu iisoo dhiibay alaabtan. ushii way gacanta ku taabatay, ilaahay xikmad ayuu u geliyay gacanteeda. ushii ayay gacanta ku taabatay, waxay tiri waan ka helay, qurux badanaha, inteed ku aragtay? suu ku dhahay? su-aal ayay u qaadatay. kiina meeshuu taagan yahay. sheekadan iyo qisadan iskamaana soo qaadanin. qisadan waxay xambaarsan tahay tacliintaas oo ku socota wiilasheena Soomaaliyeed. gabadhiini Soomaaliyeed oo lixaadkeedii qabtay, markaad guursataan ayaad rabtiin inaad lixaadka ka jartaan, ama lugaha ka jartaan ama indhaha tartaan. dadkii kalena adduunyada ilan Soomaali bas kuma noole, dadkii kale Soomaalidii nimankii kale oo adduunyada caalamka ku noolayna gabdhihii ay ilaahay lixaadka tiri ayay rabaan intay lacag ku bixiyaan inay lixaadka u iibiyaan. distance iga dheh. marka wiil yahow Soomaali walaal, videogeyga fiirso, markaad fiirsatana wax ka baro. yaa saas qisadii aan ku laabto. ushii bay la dhacday gabadhii, su-aalashii wiilkii weydiisay. markaas waxay weydiisay aboobe samafale waa ceynkee, ma dheer yahay, ma qurux badan yahay? muuna hadlin, waayo samafale meeshuu taagan yahay. wiilka yarna samafale ayuu ka cabsanayaa inuu sheego, faruurtuu qaniinsan yahay uu leeyahay. markaasay tiri ma hadishid oo ii jawaabtid? haye mid kale aan ku weydiinaya, samafale aniga ma i rabaa? ay dhahday. marka wiilkaba intuu hadlin bob soo dhow wuxuu yiri ha waan ku rabaa, aad iyo aad ayaan ku rabaa. waayo u naxariisanaya, wuu u naxariisanaya. indhahaas ilaahay tiri ayuu rabaa inuu xoog ugu soo celiyo, adiga maaha. laakiin ya bas meeshii ayaa sheekadii ay fariisteen. wuxuu yiraahday aniga waan sii galbanayaa. maya no, waxay tiraahday markay intii uu yiraahday ha waan ku rabaa oo aad iyo aad ayaan ku rabaa, ayay waxay tiri way xishootay. ilaan dumar alxayaa min aliimaan. way xishootay, gacantay madax afka saaratay tiri iyo indhaha. wiilkii yaraa ku tiri aboowe maxaa iigu sheegi waysay inuu samafale kula joogo? waan qajilay. markaas waxay dhahday maxaan kuu keenaa? maxaa cabaysaa? cabitaan ama shaah ama qabow ama kuleel maxaan kuu keenaa? markaas wuxuu yiri
no waan fiicanahay, waad mahadsan tahay, laakiin ogow in short time, macnaha muddo gaaban adiga iyo aniga banaanka ayaan u baxaynaa, waan soo shaqaynaynaa, waan banaan baxaynaa, ani iyo adiga ogaaw. markaasuu dhahay maxaa ka qabtaa? waxba kama qabiyay tiri. waa sax, waxba kama qabi, waa sax. qaybtii 3 iyo wiiga soo socdo insha allah. ha moogaan, waa very 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 interesting. ha moogaan walaal, ila soco qaybtii 3 iyo musalsalkii macaanka badnaay.